kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa caalamka TV ku soo dhawaada wararkeena dhinaca diblomaasiyadda iyo bariga dhexe qodobada aad wararka iyaga maalmadan maanta ku daawan doontaan waxa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga oo safar degdeg ah ugu baxaya dalka Azerbaijan Imaaraadka Carabta oo dabada ka riixaya maalgelin kacdoon lagu bartilmaameedsanayo Turkiga iyo sidoo kale Qatar NATO oo iyaduna sheegtay in sar loo qaadayo taageerada ay siiso dalka Turkiga iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo dib ugu noqday aqalka cad kadib maalmo uu xanuunlayaal ku ahaa isbitaalka Walter Reed qodobadaas oo faahfaahsan u diyaar garooba aan ku bilaabay wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga ayaa lagu soo warramay inuu safar degdeg ah ugu baxayo dalka Azerbaijan wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga ninka lagu magacaabo Mevlut ayaa u safri doona dalka Azerbaijan isagoo ku tagi doona booqasho rasmi ah maanta oo Talaado ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda baarlamaanka dalka Azerbaijan ayaa dhawaan isagu waxa uu ku dhawaaqay xaalad dagaal oo magaalooyinka iyo deegaanada qaar kadib xadgudubyo xadka ee markaa dhinaca Armenia uga yimid iyo weerarada ka socda gobolka Nagorno-Karabakh ee markaa laga haysto dalkaasi Azerbaijan ee Armenia haysato xukuumadda ayaana baarlamaanka ku raacday midaas Isniintii shalay ahayd muddo yar kadib markii Armenia ay weerartay Ankara waxa ay markaa ku dhawaaqday taageerada Azerbaijan iyadoo oo markaa saraakiisha xisbiyada siyaasadeed ee caadiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ay ku dhawaaqeen taageero aan kala go' lahayn oo ay markaa la garab taagan yihiin wadanka Turkiga ay walaalaha yihiin ee Azerbaijan si kastaba waxaan la ogeyn waxa booqashada wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ee Azerbaijan ka bedeli doonto xaaladda gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno-Karabakh wahagaag wali waxa daawanaysan wararkeeni dhinaca markaa diblomaasiyadda iyo bariga dhexe ee caalamka TV hadii aynu u kicitino dhanka Imaaraadka Carabta waxa lagu soo warramay in Imaaraadka Carabta uu dabada ka riixayo maalgelin kacdoonna lagu bartilmaameedsanayo dalalka Qatar iyo sidoo kale Turkiga isu taga Imaaraadka Carabta ayaa maalgeliyay warbaahinno iyo ololayaal kicina oo ka dhan ah Qatar iyo dalka Turkiga sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay TV-ga caalamiga ee Al Jazeera sida lagu sheegay warbixinta telefishinka Al Jazeera ee fadhigiisu yahay magaalada Doha ee xarunta dalka Qatar Imaaraadku waxa ay wadaan mashruuc digital ah oo loogu magac daray sirdoonka Carabta oo lagu bartilmaameedsanayo maamulada dhowr dawladood oo ay ku jiraan Turkiga iyo sidoo kale Qatar warbixinta ayaa soo xigatay waxa ay markaa ugu yeertay fariimaha sirta ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ee la xiriiray isku dubiridka Imaaraadka Carabta Saudi Arabia iyo Bahrain si loo weeraro Qatar iyo hay'adaha dhaqaalaha iyo warbaahinta ee fagaarayaasha caalamiga ah waxa ay sheegtay in shabakad ka kooban 277 akoonno Twitter been abuur ah oo la xiriirinayay shirkadda .dev la xanibay shirkaddan ayaa lagu soo warramayaa in ay markaa ka shaqeyso Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale dalka Masar iyadoo ujeedadeedu ahaa markaa in ay bartilmaameysato Qatar iyo dalalka kale ay ku jiraan Iran iyo sidoo kale dalka Turkiga Imaaraadka Carabta ayaan wali dhinacooda wax wara ka soo saarin eedeymaha loo soo jeediyay ee ku aadan in ay dabada ka riixayso kacdoonadan markaa lagu doonayo in laga kiciyo dalalka Qatar iyo sidoo kale dalka Turkiga dhanka kalena xulafada gaashaanbuurta NATO ayaa lagu soo warramayaa in ay diyaar u yihiin in ay markaa sara u qaadaan taageerada la siiyo dalka Turkiga xulafada gaashaanbuurta NATO ayaa go'aansaday in ay markaa sara u qaadaan taageerada ay siinayaan Turkiga iyadoo xogayaha guud ee ururkaasi Jen uu markaa sheegay ammaanka Ankara uu la mid yahay kan gaashaanbuurta shir jaraa'id oo ay wada jir u qabteen wasiirka arrimaha dibadda Turkiga labada mas'uul isagoo amaanaya doorka Turkiga ee la dagaalanka argagixisada ayuu waxa uu sheegay Jens in dalkaasi Turkiga uu door weyn ka ciyaarayo la dagaalanka argagixisada dhanka kale isagoo ka hadlayay colaadda ka taagan Azerbaijan iyo Armenia ayuu Stoltenberg waxa uu walaac ka muujiyay qasaaraha soo gaara dadka rayidka ah waxaana uu sheegay in NATO ay bixin doonto taageero si loo soo afjaro qalaasaha ka taagan gobolka Nagorno-Karabakh ee dalka Azerbaijan iyo sidoo kale Armenia ay ku muransan yihiin ugu dambeynna madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu soo warramay inuu dib ugu noqday aqalka cad kadib xanuunkii COVID-19 ee loo dhigay isbitaalka lagu magacaabo Walter Reed ee gobolka Maryland madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dib ugu noqday aqalka cad habeenkii Isniinta ah kadib markii uu markaa ka soo baxay isbitaalka militariga ee Walter Reed ee ku yaala magaalada Bethesda ee gobolka Maryland
madaxweynaha ayaa halkaasi lagaga daweynayay xanuunka COVID-19 oo dhowaan laga helay. imaanshihiisa aqalka cad ayaa durbaba dhalisay dood cusub kadib markii uu fariin dhinaca Twitter-ka oo uu soo diray ku qoray in dadku aanay viruska ka cabsan, kaas oo dilay dad ka badan 210,000 oo qof oo gudaha dalka Mareykanka. waxaana intaasi dheeraa in uu aqalka cad galay isagoo aan xirnayn waji daboolka. kadib markii dayuuradii waday ee Marine One ay ka soo degtay aqalka cad, Trump ayaa waxa uu si taxadar leh u fuulay salaanka dhanka bari ee aqalka cad kadibna iska bixiyay daboolkii wajiga isagoo halkaasi shaaca kaga qaaday in uu markaa dareemayo xaalad aad u wanaagsan.